weerarkan saaka soo qaaday aniga iyo inta taageersanay wuxuu ahaa mid laga maarmi waayey oo dibdare muddo dheerba soconaysay oo cadaalad darre iyo cagajugleyn lagu hayay shacabkayada aan kaga jawaabayn. xageed ka soo qaaday marka? gudaha magaalada boorama ka qaadnay. haddana xagee joogtaa? waa ku dhowahay. yay ku hayaan marka cagajugleynta aad sheegaysid? shacabka degan gobolada awdal iyo degmada Gabiley. cagajugleynta ayaa idinku haya? waxa ku haya maamulka SNM ee ka taliya magaalada Hargeysa. adiga yaa afhayeenkaaga dhigay shacabka marka? waxa iga dhigay qofkii goofyada la saaray oo aan haystay dadka ugu taageerada badan xagga salaadinta marka la calaamad saaray taasoo ku jirtay. maxaa khasaaro soo gaaray ciidankaaga? ciidankiyaga khasaaro ma soo gaarin haba yaraatee oo ciidan dagaalyahana weligeedna waan xataa kuleed garayna khasaaraha intaana gelin wax khasaaro haba yaraatee la soo gaaray ma jiro. laakiin in aad magaalada bartamaheeda weerar ku qaadid oo rayidkii aad lahayd haatan waan u doodayaa aad xabad ka dul ridid taa maamul iyo wanaagba iyo hoggaan dhaqanba? weliga marka hadduu guriga kuu galo dhaqankeeni ubooyinka markuu galo ubasubad soo maran waa la isku jejebin jiray haddii ka maarmi weydaha. marka bulshada iyo dadka halkaa degan dan kama lihid? may sababta loo galayaaba danteediia waa in naftii laga dhex saaro. ujeedka u dagaalamaysid muxuu yahay marka? ujeedka loo dagaalamaya waxa weeyaan in cadowga baabi'inaya dantooda iyo fuujarkooda laga dhex saaro. intii aad weerar soo qaadi lahayd cabashada aad qabtid maxaad iyaga ula wadaagi weyse? waa ka soo daalnay inaan si nabadeed cabashada ku dhamaysano ku raadino waana ku weynay aniga maahan ilaa haddeertadani kuwo ilamid ah oo iga hadhay oo gudaha jooga ayaa maalin walba baryootamayay oo saami la siiya lahaayo cadkaygeeda siiya lahaayo loo diiday markaa taana maana dhaafin. horaad u heshiiseen xukuumadda somalilan maxaa haatan dib u soo celiyey inaad qorigii dib u qaadatid? may waa alle waan heshiinina ma jiro markay xaaladuna adkaadeen dagaaladuna adkaadeen inaan anigu garaad daamo oo xoogaa aan hoos u dhigo maaragtay nabadda guurkugaar wax la yidhaahdo oo dhaqanka soomaalida ku jirayay ayay hayd oo xoogaa ka dareeriyo odayaal qaateen anigu ma qaadanid markaa tiinaaga soo bay noqotay. laakiin waxaad leedahay garaad baan ahay soomaalida dhaqankeedana kuma jiro garaad weerar soo qaado oo ciidan hogaamiyo marka labadaa arrin sidee isu raacayaan? annaga dhaqankayga waa ku jira haddaanu nahay wasiga la yidhaaho weligeedaa ku jiri jiray ogaasyadaa hadi jiray hogaamin jiray kolka nabadoonka la yahay dagaalka la qaadayana micnihiisu waa in nabadda lagu ilaaliyo weeyaan marka nabad la waayo. weerar iyo qulqulatooyin wixii lagu waayey wadahadal inaan lagu helayn bay dad badan aaminsan yihiin marka xal miyaasaa lagu gaari karaa? oday adeerkay ahaayoo gabyi jiray baa wuxuu yidhi 10 sano ninkaan wada jiray een eegay taladiisa tunka hadduu jannadii igu soo taa aqbali maayo. waa soo kala daalay si walba soo kala daalay rag waa iskaranayna. waa tan ciidamadaadii lagu daray ciidamada somalilan haatan ciidamadan xaggee ka keentay? waxaan horta anigu marna ku jira ma ahayn odayaasha beesha ayaa ka shaqaynayay anna ciidanka iga xoogay anna kolka waa u daayey bal siday ay rabaanba in la yeelo laakiinse de wixii markaa lagula ballamay iyaga laftoodii baa dib loo waayey maxaa kuwii baa khaatiyaan gaaray oo laga been sheegay qoladani beeshaas ee nimanka la yidhaahdo SNM niman axdi yaqaano maaha marka waxa weeyaan ciidamada dambe waxay ka yimaadeen kacdoon bulsho oo cusub oo hadda jadiida oo ilaa sayrac iyo luqyo la isku haysto ilaa Gabiley la isku haysto ilaa dowladda boorama la isku haysto oo daana nimankii dadkii waxbaba uga tanaasuleynin. odayaashii reerka soo ma joogaan oo haddana berri ciidamada aad haatan urursatay ka qaadan maayaan? way joogaana waa inay gula jiraan imika walihaa soo xadgudbay SNMta inaan dhulkooda tagnana ma rabno inaan baabi'inana ma rabno shacabku waa shacab Soomaaliyeed wada shacab Soomaaliyeed nahay waxaan rabnaa inaan iska celido oo halkeedii ka celido. laakiin SNM baad leedahay wax SNM oo aan ognahayna ma jiraan waxaan ognahay inay jirto xukuumadda Somaliland marka SNM xageed ka keentay adiga? maamulka ka dhisan Hargeysa muddada dheer dhisnaa shacabka iyaga wada xukumayay nabaadiidii SNM oo saxa ayuu ku maamulayay meeshaas kolkii la heshiiyey isagoo qola gaar ah markii hore waxyaabo badan lagu heshiiyeyna waxa la wixii sharci ahaa ee lagu heshiiyey maalinba tuu doonu ka dhaxayay marka SNM si iska taagan oo xilliga dagaalamaysay nabaadiidii waa meesha ka shaqaysay. xalka maxaad u aragtaa inuu ku jiro? xalku wuxuu ku jiraa nimanka la yidhaahdo SNM oo gar qaata oo baryada muddada dheer la baryayay gorgorta way ka tagtay beesha iyadu baryaysay muddada dheer oo cadkoodii la siiyay lahayd cadka ka maqanina uu ahaa annaka oo xisaabsanayna 3.7% inaan ka nahay dadka degan waqooyiga Soomaaliya xuquuqda aan ka haysanina ay 5% tahay inay helaan ay muddo dheer dawladtamayeen xalna laguma darin xuquuqdii taa weeyaan waxa meesha yaala lagu dagaalamay.